Waxaan waayay hooyaday, aabahay, walaalahay. Waxaan weli maqlaa qayladooda habeenkii. Waxaan waayay boqolaal kun oo qof oo qabiilkayga ah. Kani waa codkii Rwanda, codkii xasuuqa iyo codkii rajada cusub. 1994 waa sanad ku reebay raad aan la tiri karin qalbiyada malaayiin qof oo Rwandese ah. Wuxuu markhaati u noqday mid ka mid ah xasuuqii ugu naxdinta badnaa ee taariikhda casriga ah. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta oon ku qaadaa digi doona xasuuqii ka dhacay Rwanda 1994. Haddii aad ku cusub tahay channelkeena, subscribe noo saar. Mahadsanid. Aan dib u laabanee, Rwanda waxaa ku noolaa laba qabiil oo waaweyn oo la kala yiraahdo Hutu iyo Tutsi. Si kastaba ha ahaatee, kala duwanaantaasi ma ahayn mid dhibaato keenayso ilaa uu soo galay gumeystigii reer Yurub. Gumeystayaashii reer Yurub waxay siiyeen qabiilka Tutsi awood iyagoo u arkay dad muuqaal ahaan u dhigma Yurub. Taasi waxay abuurtay cadaawad muddo soo jiitamaysay. Markii xornimada ay qaadatay Rwanda 1962, Hutuga waxay qabsadeen talada dalka. Tutsina waxay noqdeen bartilmaameed. Kumanaan ayaa la dilay, boqolaal kun waa la musaafuriyay oo qabiilka Tutsiga ah. Qaar ka mid ah waxay u baxsadeen dalka deriska ah ee Uganda. Halkaasna waxay ka aas-aaseen jabhad lagu magacaabo RBF. Abriil 6, 1994, diyaaraddii siday madaxweynaha Rwanda Juvenal ayaa lagu soo riday magaalada Kigali oo caasimadda u ah Rwanda. Isla habeenkaasi, dalka wuxuu galay xaalad xasuuq ah muddo 100 maalmood gudaheed ah. Kaliya 100 maalmood, ku dhawaad 1 milyan oo nolol ah. Beesha caalamka way aragtay, way maqashay, balse way ka aamustay. Jabhaddii RBF ahayd uu hogaaminayay madaxweynaha hadda talada haya ee Paul Kagame, iyagoo ka yimid waqooyiga, waxay si tartiib u qabsadeen dalka. Rabshado badan kadib iyo dilil badan kadib, ugu dambeyntii bishii Luulyo 1994, Rwanda ayaa la xoreeyay. Xasuuqii wuu istaagay, balse dhaawacii maskaxda iyo qalbiyada weli wuu nool yahay. Rwanda waxay qaaday waddo adag oo cadaalad iyo nabad ah. Waxaa la sameeyay maxkamado caalami ah iyo kuwo dhaqameed ah si dadka dambiyada galay loo xukumo. Waxaa la bilaabay olole dib u heshiisiin ah oo ku saabsan cafis iyo wacyigelin. Maanta Rwanda dalka ugu nadaafadda badan Afrika oona ugu amniga badan, wuxuuna u jeestay horumar. Qabiil lagama hadlo si dadweyne ah. Waddanku wuxuu ka baxay mugdigii. Gabagabadii, xasuuqii Rwanda wuxuuna barayaa in naceebku uusan dhali karin wax aan ahayn burbur, balse cafiska iyo midnimada ay keeni karta mar walba horumar joogto ah. Haddii aad intaan soo gaartay, waad ku mahadsan tahay. Haddii aad subscribe noo saarin channelka, subscribe noo saar.